waxaan u malaynayaa abaarta badan waxaa noogu wacan nimanka nabadiidka ah ee dhibaatada dalka ku wada oo dadkii wax aldoorka hadilaaya iyo dadkii oo iska fiirsanaya dunuubta u weynay dadkan galeen markaan waxa weeye inay dadka dhiigga muslimka daadinayo inay wax ka qabanayn khaasatan magaalada Boosaaso waxaan fariin uga dirayaa oo dad badan oo halka joogana ay noloshooda ay ku xiran tahay ama degaan kooda labaad u yahay in wixii lagu jiray aan waxa loo adkeysan kara ahayn in maalin walba qof hal doora horteena intii lagu dilo laga aaminsan yahay cadaab ka weyn oo soo degi lahaa ma jirto dhiigga muslimku waa qaali wax ilaahay uu karaameeyay dunidan waxa ugu weyn bini aadamka waliba muslimka oo cadeecay marka waxaan rajaynayaa inaan u digtoonaano oo u toghayno sidii nabadeena aan sugu lahayn cadawga isaga dulqaadi lahayn raxmadda ilaahayna aan markaas u fili lahayn haddii ilaahayda ka dhigo waxa aad iyo aad runtii nasiib darro ah in dadkeenni uu ku dhacay rucbi iyo cabsi iyo iyagii oo dhexdooda shaki laga kala abuuray dadkan waa dad qura waa ehel waa dad isku mid ah ninkii ka baxoo bannaan istaago bele kale u galay nagama mid aha ehelna lama aha lamanana dhalan waa cadowga in la iska qabto u baahan yahay waxaan u sheegayaa dhammaan wixii dadkan ka fallaagooba inaysan u arag wiilashoodii ee u arkaan cadow noloshooda ku soo jeeda oo in la iska qabto u baahan waxaan insha Allah rajaynayaa arrintaas inay dadka odayaasha iyo waxgaradka ay u istaagaan oo hormuud ka noqdaan haddaan arrintaa loo soo bambixin way adkaanaysaa in wax laga qabto waxaan aan runtii taariikhduna ay qoraysay dadkana lagu yaqaanay dad in la gumaysto ogol ma ahayn weligoodna lama qabsan waxaysan raalli ka ahaynna ma aqbalin haddana inay aqbalaan sax ma aha waxaan dareemayaa waxyaabaha habaca keenay waxa weeye kalsoonidii dawladda ay ku qabeen hoos u dhacday oo ay arkeen inay dawladdu u diyaarsanayn ciidamada halka jooga iyo aniga iyo dhammaanteen waxaan diyaar u nahay inaan cadowgaan iga qabanno idinkana gacan baan iga rabnaa haddaan nabad la helin wax kale oo laga sheekayn karaa ma jiro horumar kale iyo wax kale oo laga hadli karaa ma jiro nabadgelyada aan isugu tagno ilaahay iidankiis raxmaddiisana waan helaynaa aniguna waan ku faraxsanahay maanta halkaa in la joogo sida guddoomiyuhu sheegay anigu reer waaciye iyo reer Boosaasan ah qardho waxay ii daba socotaa anu garan maayo laakiin waxaan u malaynayaa waa isii soo sagootisaan u malaynayaayo sagootiskana waa isku leenahay marka insha Allah waxaan rajaynayaa magaaladan nabaddii lagu yaqaanay iyo hormuudkay u ahaayeen nolosha in dib loo soo celiyo ganacsigii waa laga soo tegey dhaqaalihii waa laga soo tegey haddee guryihii ayaa intaan dambe ragga halka isku soo ururay guryahoodii intay kireysteen bay halka ku biilan jireen hadda waa ogtihiin Boosaaso waa haawanaysaa bini aadamka hadduu nolol helina haddee waxa weeye mawtur sariir isagoo nool buu iska dhimanaya haddii kale gaajadu waa ka cadowsan tahay cudurrada ilaahayna markuu ugu manna sheeganaya Quraysh alladii ancamahum min juucin wa aamanahum min khawf juucu hormariyey haddaan shaqo jirin oo nolol jirin waxay la tahay waa cadaab meeshii ugu dambaysay waxaan rajaynayaa in magaalada Boosaaso oo ah xarunta dhaqaalaha ee Puntland ama qoodisa dekedii iyo ganacsigii dadka ilaa iyo gaalkacyo ku nool noloshooda ay ku xirneed ilaa saaxo runtii arrintaas gabaabsi iyo halis bay ku jirtaa dadka mudan oo maanta in lagala hadlana waa dadka halka jooga iyo inta la mid ah marka arrintaas waxa la rabaa in loo guntado waxaan ugu baaqayaa dadka wiilashooda dadka qaybtiisa mooda ee guryaha ay ku haysta in ay laamaha amniga u soo sheegaan in tallaabo laga qaado inaan qurun la dugsan baan inagula dardaarmaya haddii ilaahayno ballanteenna waxa weeye inaan amniga sugno cadowga iska qabanno dhaqaalaha iyo horumar ka shaqayno noloshii quruxda badneed ee dadkaan lahaayeen ay soo noqoto in la iscafiyo niyadda la isku furo ilaahay la isku xiro raxmadda ilaahayna ilaahay idankiis waa nasiinayaa
waana rajaynaynaa ilaahay idankiis wixii aan ka barnay dhowaan inaan ka helno ilaahay waxaan subxaana wa tacaala ka baryaynaa maanta oo jimca oo bacadkaas aan taagannahay ilaahow adaa ummaddaan deeqee raxmaddooda u soo dedeji wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu